تأملات قرآنية. قرآن أحيا في قلبي نورا من بين الظلمات، أعطاني ثقة في ربي، أملا إيمانا وحياة، في كوني لا أيأس أبدا والحشر. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، إن إلى ربك الرجعى. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى، أرأيت إن كذب وتولى. ألم يعلم بأن الله يرى، كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة، فليدع ناديه، سندع الزبانية. كلا لا تطعه واسجد واقترب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، suuradda walaalayaal xalqadan aynu fiirsan doonno insha allahu tabaaraka wa tacaala waa suuratu alcalaq. waa suuradda magaceeda loo bixiyey suuratu alcalaq ama suuradda iqra. suuraddani waa suuraddii ugu horreysay ee qur-aankii ku soo dega nabigeena nebi moxamed sala allahu calayh waalihi wasaxbihi wasalam. shanta aayadood ee ugu horreeya waa qur-aankii ugu horreeyey ee soo dega weeyaan. suuraddani awalkeeda waxaa lagu dhiirigelinayaa dadka ummadda nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam inay wax barato oo aqoontii iyo qoraalkii iyo khadkii iyo sidii wax loo akhriyayay iyo in cilmiga la barto, waayo diinteennu waa diin cilmi weeyaan. waa diin wax weeyaan cilmiga qofka ku boorinaysa. inta dambana suuradda waxaa ku sugan digitaan loo digayo nin la odhan jiray abujahal oo gaaladii waaweynaa ka mid ah oo rasuulka calayhi salaatu wasalaam u hanjabay haddii nebiga uu arko isagoo u tukanaya ayuu u hanjabay oo wax weeyaan waxaasaan ku samayn doonaa nebiga sala allahu calayhi wasalam. markaasaa ilaahayna suuraddan ugu hanjaba. bismi illaahi araxmaani araxiim. iqra akhri, dikriga iyo xuska iyo hadalka ilaahay subxaana wa tacaala akhri. bismi rabbika, magaca rabbigaa adiga oo ku bilaabaya. alladii allahaasoo khalaqa wax abuuray. khalaqa alinsaana, ilaahay wuxuu abuuray insaanka min calaqin, cinjiro ayuu rabbi ka abuuray subxaanahu wa tacaala. ilaahay makhluuqa iyo dadka ayuu rabbi subxaanahu wa tacaala uu abuuray oo cinjiro iyo waxweeye dhiigag ayuu rabbi ka abuuray subxaanahu wa tacaala, yacni cinjir dhiiga. iqra akhri warabbuka alakramu, rabbigaa ayaa waxa weeyaan mudan oo sharaf badan. alladii allahaasoo callama bilqalam, alladii allahaasoo callama baray dadka bilqalami, alkhata bilqalam, sida qalinka wax lagu qoro oo wax lagu khadeeyo, rabbiga waxa weeyaan dadka baray. callama alinsaana, ilaahay insaanka wuxuu baray maa lam yaclam, waxaanu aqoon ayuu rabbi dadka bara. iqra akhri ayuu ilaahay yidhi. waxaa nebigu akhriyaya calayhi salaatu wasalaam waa xuska ilaahay iyo magaca ilaahay. iqra akhri, waxaa nebiga la faraya calayhi salaatu wasalaam inuu akhriyo waa qur-aanka iyo waxyiga. bismi rabbika, magaca rabbiga adigoo ku bilaabaya. alladii allahaasoo khalaqa waxa weeyaan wax abuuray. khalaqa alinsaana, ilaahay insaanka wuxuu ka abuuray min calaqin, dhiig buu ilaahay dadka uu ka abuuray subxaanahu wa tacaala. oo manidii biyihii manid ahaa markay isbedesho waxa weye cinjir dhiiga ayay isu bedeshaa. markaa cinjiro waxa weye rabbiga ka abuuray waxa weye dhiiga. iqra akhri warabbuka alakramu, rabbiga ayaa mudan oo sharaf badaneh. alladii allahaasoo callama dadka baray bilqalam, alkhata bilqalam, sida qalinka wax lagu khadeeyo baray. callama alinsaana, insaanka ilaahay wuxuu baray maa lam yaclam, waxaanu aqoon. kallaa may ama xaqan dhab ahaane, ina alinsaana insaanku layadqaa wuu qooqayaa oo wuu kibrayaa. talo sababtu waa maxay? an ra'aa
inuu mooday oo uu ismooday hu isagu hu'du wuxuu noqonayaa isaga damiirku istaghnaa inuu kaaftoomay oo wuxuu isu haystaa inuu isagu isku filnaaday oo rabbigii uu ka maarmay laakiin taasi sax ma ahee inna ilaa rabbika xagga rabbiga arrujca ayaa loo noqonayaa marka rabbi cid ka maarmi kartaa ma jirto xagga ilaahay baa loo noqonayaa ilaahayna dadka waa kala xisaabaya ara'ayta alladii yanhaa iiga waran kii waxa weeyaan diidayey cabdan addoon u diidayey idaa sallaa addoonkaasi marka uu tukado kaabal hadda iiga waran ara'ayta iiga waran in kaana haddii kaasi uu ku sugan yahay ka loo diidayo salaada hadduu ku sugan yahay cala alhudaa hanuun hadduu ku sugan yahay ka waran aw amara wa amara uuna faro bitaqwa cabsida ilaahay subxaanahu watacaala ara'ayta waxaad iiga warantaa in kadaba haddii uu beeniyo kan waxa weeyaan wax reebaya oo abujahalah haddii rabbigii uu beeniyey watawallaa uu ka jeestay rabbigii bal hadda iga waran alam yaclam miyaanu ogeyn bianna allaha yaraa in ilaahay u taalacanayo rabbi uu arkayo subxaanahu watacaala kallaa may sida uu mooday ma aha lain lam yantahi haddii aanu waantoobin haddii aanu ficilkaa iyo hadalkaa uu yidhi nebiga uu hanjabay calayhi salaatu wasalaam ee uri rasuulka oo sujuudsan haddaan arko wallahi waxaasaan ku samayn doonaa haddii hadalkaa uu ka dheeraan waayo uu iska dayn waayo lanasfacan waxaanu jiidi doonaa binnaasiyati foodda ayaanu ka jiidi doonaa foodda ayaanu jiidi doonaa naasiyatin food baanu jiidi doonaa kaadibatin been badan oo khaati'atin dembi badan falyadcu au yeedho naadiyahu tolkii au yeedho sanadcu annaguna waxaan u yeedhi doonaa azabaaniyata malaa'igta waxa weeyaan ciqaabka iyo cadaabka ayaan u yeedhi doonaa bal hadda ka waxa weeyaan xoog wata kallaa may laa tutiichu rasuulka ilaahay oo maqlin oo adeecin abujahl wasjud ilaahay u sujuud rabbigaa subxaanahu watacaala waqtarib ilaahayna ugu dhowow wax weeyaan camalada saalixa wan wanaagsan suuraddani waa suuraddii ugu horreysay ay soo degta waxyaalaynu kala baxayna waxaa ka mid a walaalayaal in aynugu boorinayso suuraddani cilmiga in wax la akhriyo iqra ummatu iqra baynu nahay ummaddii ilaahay uu faray subxana wataala inaan wax akhrino suuraddani waxay nugu boorinaysaa in wax la qoro alladii callama bilqalam waa nimco aad iyo aad u weyn waxaa dunidu maanta ay ku kala socoto ee dowladuhu maanta ay ku kala socdaan waa qalin waxaa jaamacadaha iyo iskuulla maanta loo furtay waa qalin si dadka loo baro siday wax u qoraan marka alladii callama bilqalam waa nimco aad iyo aad u weyn waxaa kaloo cajiiba ilaahay subxaana watacaala wuxuu jamciyey suuraddan ku kulmiyey cilmigii iyo abuurkii oo bani aadamku markuu abuurmo waxa ugu horreeya looga baahan waa inuu wax barto اقرأ باسم ربك الذي خلق marka khalqigii waxa la isku xidhay qiraa'adii wax akhrintii suurad kale ilaahay wuxuu arrahmaan allama alqur'aana khalaqa al-insana cilmigii iyo khalqigii waa la isku xidhay wallahu khalaqakum ilaahay subhanahu wallahu akhrajakum min butun ummahatikum la ta'lamuna shay'an caloosha hooyadin ilaahay wuxuu idinka soo saaray la ta'lamuna shay'an idinku aydan cilmi lahayn yani waxa ugu horreeya la doonaya marka waxa weeyaan aad aqli yeelato aad wax kala saarto waa inaad cilmi yeelato ibnu aadamow cilmigana waxa ugu sharaf badan oo ugu wanaagsan cilmiga qofku rabbiga uu baranayo subxaanahu watacaala iyo sababta qofku adduunkan uu yimi waxa kaloo cajiiba suuradda ku sugan arra'aahu istaghnaa waxa insaanku uu qooqaya uu kibraya arra'aahu istaghnaa wuxuu isu maleeyey inuu isku filnaaday oo sida maanta gaaladu maanta ay moodayaan cilmiga sayniska markay maanta barteen inay rabbi ka maarmayaan waa taa ilxaad ku dhashay allakoodnimadu waxa weeyaan ay dhalatay rabbigood ay dafireen ilaahay ay diideen ay u maleeyeen aakhira inaanu jirinba laakiin ilaahay muxuu yiri inna ilaa rabbika arrujca ilaahay marnaba laga maarmi maayo oo way xaqiisa loo noqonaya subxaanahu watacaala ilaahayna dadka dhawaa xisaabaya waa kala saaraya waxa kaloo cajiiba suuradda ku sugan in ilaahay subxaanahu watacaala uu tilmaamay cilmigu inuu ka mid yahay asbaabta ibnu aadamku uu ku kibro oo markii laga warramay cilmigii iyo in al-insaana la yatqa iyo wixii la mid ah waxa lagu khatimay usjud waqtarib ilaahay u sujuud oo ilaahay u khuduuc oo akibrin oo cilmigaagu yaanu ku hodin oo amoodin markii maanta cilmi maanta aad yeelatay inaad rabbiga aad ka maarmi karto subxaanahu watacaala suuraddan waxaa ilaahay subxaanahu watacaala uu ku khatimay ku gabagabeeyey abu jahl oo nabiga u hanjabay calayhi salaatu wasalaam ayaa ilaahayna wuxuu leeyahay subxaanahu watacaala alam yaclam biana allaha yara miyaanu ogeyn in rabbiga uu taalacanayo o arkayo hadhowna uu ka abaalmarinayo hadduu arrinkaa ka waantoobi waayo lanasfacan binnaasi fooddaanu jiidi doonaa fooddu waa meesha qofku uu ka hoggaansamo halkaasaa la jiidi doonaa markaasaa fooddii waxaa la yidhi naasiyatin kaadibatin khaati'a waa food waxa weeyaan yani been badan oo beenawaasad ah oo waxa weeyaan yani dembi badan waxaa loo jeedaa qofka foodda iska leh ilahay wuxuu yidhi falyadcu naadiyahu tolkii au yeedho sanadcu zabaniya annaguna waxaan u yeedhan doonaa waxa weeye zabaniyadu waa malaa'igta inoo iman doona insha allah suuradda ya ayuha almudathiro calayha 19 waa 19 malag ee waxa weeyaan jahannamo guud jooga ee naarta waxa weeyaan ilaalinaya kuwaasa waxa la azabaniya waa malaa'igta cadaabta ee dadka waxa weeye ku guraysa naarta ciyaadan billahi subxaanahu watacaala ilaahay naga badbaadiyo naartaas suuraddan waxaa lagu khatimay sujuud waana suuradaha sajdatu tilaawa ay sunno tahay marka la akhriyo in la sujuudo 15 suuradood
ayaana sujuuddaas ay ku jirtaa 14 ka midi waa sajdatu tilaawa weeyaan sujuudda laakiin ku jirta saad suuratu saad sujuudu shukrin baa la dhahaa 14 kale wixii saad mooyaane suuradaha kale marka la akhriyo in la sujuudo ayaa sunna ah ama salaad lagu jiro ama yaan salaad lagu jirin laakiin sujuuda saad salaada dhexdeeda laguma sujuudi karo waayo waa sujuudu shukrin weeyaan oo imaam shaafici raxmatullaahi calayhi wuxuu qabaa haddii qofku salaada dhexdeeda uu ku sujuudo in salaadiisa qofka ay burayso waayo sujuudaasi waa sujuudu shukri weeyaan sujuudu tilaawa ma aha wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam